waxaa guud ahaanba soo idlaaday doorashadii madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ka socotay magaalada Kismaayo waxaana doorashadaasi ku guuleystay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. intii ay socotay doorashadu waxaa ku tartamayay 3 musharax oo kala ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Canab Maxamed Daahir iyo Maxamuud Maxamed Cumar. waxaana codadka ku horeeyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo helay 56 cod, Canab Maxamed Daahir oo iyaduna heshay 17 cod iyo musharaxa saddexaad Maxamuud Maxamed Cumar oo isaguna helay 1 cod oo kaliya. waxaana sidaasi ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo horay u ahaa madaxweynihii hore ee Jubbaland, maantana mar saddexaad loo doortay in uu sii ahaado madaxweynaha maamulka rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. soo bixistii madaxtinimo ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay shacabka reer Jubbaland oo iyagu dan u arkayay soo laabashadiisa. sidoo kalena waxa ay hadda dibadbaxyo lagu taageerayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay toos uga socdaan gobolka waqooyi bari Kenya iyo qaar ka mid ah deegaanada Jubbaland oo shacabka ku nool ay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo wato boorar ay ku xardhan yihiin sawirada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxayna taasi muujinaysaa taageerada buuxda ay u hayeen shacabka reer Jubbaland soo laabashada mar saddexaad Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. warbaahinta Ras Media magaalada Muqdisho.